oo lama gabado cid walbana inteedaan u iraada cidii amaalena amaanteeda waan sheegaa cidii hoos ka tuur leena inteeda waan u sheegaa maanta aad baan u faraxsanahay waxaan doonayaa inaan idin sheego dadkii Soomaaliyeed ee aan Muqdisho ugu yimi dhammaantood way soo dhaweeyeen aniga iyo dadkii baalaha iga socday xafladaha igu wehelinayay mar walba waxa si gaar ah waan la koobi karin ii soo dhaweeyay beelaha hawiye ay ugu horeysay beesha Mudulood ay ku xigeen beesha Murursade maanta oo aan fadhi joogno oo taaganahay beelweyntii Habargidir waxaan idin sheegay maanta si aan u faraxsanahay inaan hor ugu farxin sababtana waan idin sheegay qolo walbana inteedii waan u soo idhi markaan xafladooda joogayo qolo walba waxay noogu heelisay qolo shirib noogu heelisay iyo qolo haddii aan laba leeyahay soo dhaweyn kale iyo haddii aan laba leeyahay xigaalnimo iyo xididnimo gaari naga dhaxaysay iyo qolo walba intooda waan idin sheegay Habargidirna maanta kala baqayni maayo inaan intooda u sheego nin waxoogo taariikh hayana waan ahayo in maanta haddii la leeyahay dhagta loo saarayo bal hadda midkaan xasuusi la oranayo mihi in badan baa goob joog ah in abwaanaho odayaashayadii taariikhdooda aanu ku faano ahaa oo la oran jiray gabay xaddi ayaa waxa dhacday dhaawac baa gaaro uu jabay meeshuna libaax bay lahayd dadna habeenkii wax laga baqay dadka iba meel way talo reerihii meesha yaalay qaarna waxay dawartuugi xumaa waa jabay nin raga waa loo cole aan halka kaga tagno ragna intay habeenkii la bixeen bay buur kala bixeen war libaax khatar ay ahayd libaax yaa cunino hilib baa loo keenayo waa loo loogayo ninba in buu yidhi qaar waa ka maqnaayn markii xoogaa uu kabniinkii muddo saarnaayo uu ladnaaday gabay buu tiriyay la baantay wuxuu yidhi bawdada markii aan ka jabay iyo boqonka taagiis habeenkiiba way bidhan lahaa bahalkii cawlaaye raggii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsoon ninkii inuu buruunji iga cuno ii bariidinayay ninkii inuu buruunji cuno ii bariidinayay aan bar kale ii tareen beerka ka ogsooni war iska waran bal hadda ninka hilibka loo qalay iyo aad wax ka cuntid lahaa ninkii beled shisheeye iga jiray ina bixi waayey ina bogsado uu jeclaa beerka ka ogsooni laxad waa baraare hadduu ii bogsado jiirku haddii eebbahay biixiyaa ka isugu beego abaal bariyo dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni ummadda anugu aan ka soo jeedaan odaygoodii ahay madax dhaqameedkeedii ahaa markay dhibaatada ku dhacday markii la xasuuqay markii diyaaradii qaranka iyo cashuurtii lagu waxyeeleeyey markii la rusheeyey madaafiicda lala dhacay markii barakacaya qaxu ku dhacay Itoobiya dabada dhigeen Amxaara iyo Itoobiya ay markaa ehelka u noqotay ay soo dhaweysay talkoodii ehelkoodina ay dhibaatada u geysteen maatadii markii ay meel ku soo ogaadeen ay fogeeyeen raggii wuxuu damcay halgan inuu galo dawladdii Soomaaliyeed iyo quwadeedii iyo ummadii isku duubnaa bal gubadle iyo inta u dhawaan dhaafi weyna waan geli weyni ciidamadii Soomaaliyeed ee hubka watay ee awoodda watay ee bixi waayey haddii aan laba leeyahay guryihii iyo haddii aan laba leeyahay iyo magaalooyinkiina naga hantiyey waa awooddii wax kasta ha ahaatee markii loo babac dhigi kari waayey taladii iyo hiilkii iyo waxtarkii beesha Habargidir waxa ugu horeysay lagu badbaado tala weeye rag uu hogaaminayay daahir cilmi يا إيكادي هذا ما هي ظاهر علمي إيكادي
daahir cilmi la yado nin saacada buu ahaa barasaab buu ka ahaan jiray waxaan filayaa ingiriiska ay ugu dambeysay عمر صلاة علمي بالله عمر صلاة علمي عمر صلاة علمي راليقا هذا من هذا الكونشر عمر صلاة يرقوا للسعودي وحينوغي ما دين إثيوبيا در ربي رقي كشريين وهذا ورسنا كجميل داري قري ميسانه عمر صلاة مركب معارض بوها هيل يتولمو waa lagu wada hadlay halkaas uu ka soo dhaqaaqay isagay rag uu hogaaminaya ciidamadii dawladda iyo raggii bay gudaha u soo galeen ciidamada waxa madax ugu ahaa ugu sareeyay ninka ugu sareeyay waxa la oran jiray marka daahir yare haddaan khaldanayn Saleebaan Abu ahaa nin habargiidina buu ahaa ninkii ciidamada xukumayay buu ahaa toddoba habeen ba daahir iyo rag la socday anaga waxa nagala socday nin la yaado Cabdullaahi Bakayre hadda Hargeysa jooga Cabdullaahi Cabdi Muusa la yiraahdaa raggaasi Hargeysa soo galeen 10 casho muddo aan ka yarayn ayuu raggii la shirayay oo shirinayay wuxuu kula tarinayay raggan tolka nahay maanta waxba uma harine aanu heelino talada uu wadayna waxay talaha bargidir soo siisay talaha bargidir u dhantahay taladii caydiidu ku yimid dalka marka waxa la wixii hub iyo taangiyo oo ay habargidir hormuud ka ahayd uu dhaqaajiyay daahir yare daahir cilmiyana Umar Salaadiyana way baxeen ciidamadii balagubada ay soo galeen hubkii iyo tiknikadii nala kula dagaalamay furayaasha naloo dhiibay ciidamadii wixii dagaal gali karayeen waa maanta gogol halkan habargidir ma dhigin habargidir Hargeysa noo dhigtay gogashii marka waxa weeyaan Hargeysa awoodii aanu ku galay taasay ahayd inamada dagaalka ku jiray dhalinyarada aan mar dagaalka ka bixin waxaan ka xasuustaa Saciid Salaad nin la oran jiray Umar Salaad walaalahay Saciid Bulbul la oran jiray Yusuf Shidan nin la yiraahdo Cayro ayaa reer ayaan la inuu ahaa baan filayaa inuu nool yahay kala ma garanayo gobolada dhexe ragii u soo baxay caydiid ilaahay u naxariisay maanta waxa farxad aad iyo aad ah inuu Xuseen Maxamed Faarax caydiid farxadaha iga muuqdaan arkayo inuu maanta hor fadhiyo inuu ragga maanta halkan nagu soo dhaweeyay sharafta Soomaaliland ka muuqata nabadgelyada iyo horumarka ka muuqata talada ka muuqata tala habargidir leeyahay weeye kama xishoonayo kama nafaanayo inaan ilaahdo beesha habargidir iyada ayaa iska lahayd Soomaali iyo irir iyo cid walbana way kala lahayd ragarboodkooda odayaashooda dhaqankooda Maxamed Faarax Caydiidna sida laga dhawaajinayay hormuud buu ka ahaa haddii aanu soo dhaqaajin ciidamadii iyo raggii iyo taladii aanu xamar imanna nabadgelyadaasi koonfur kamay dhacdeen gobolada Somaliland marka taasi inaan inta idhaahdo ku dheeraado waxa weeyaan waan ka mahadnaqaynaa abaalka hore iyo tolnimada iyo walaaltinimadan ka mahadnaqaynaa waxaan filayaa inaanan carabka ku soo koobi karin mana koobi karo mana sheegi karo inta waxtarka aanu tirsanayno mucdiisii iyo hadalkayga murtidiisina gabaygii gabaxadi ayay ku koobnayd waxaan jeclahay markaa waqti dambe weeye farxadda awgeed hadalku waa kaa kala lumaa xikmadduna way kaa kala luntaa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad halkan igu soo dhaweysaan aniga iyo ragga ergada ila socotay iyo waftiga ila socotay wasiirada iyo xildhibaanada iyo salaadiinta iyo ragga dhaqan kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhaqanka gogoshan fidiyay habargidir saraakiisha siyaasiyiinta gabdhaha iyo haweenka iyo dhalinyaradii hawsha tan ku farayareystay ee ka shaqeeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantiin waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan jeclahay
inaan idinla soo dhoweeyo suldaanka cusub ee beesha reer xaaji saleemaan waxaan leeyahay dee haddii aan anigu maanta gardaadiyeyna oo dee waxaan leeyahay annaga waa loo doonaaye kolley hawlna wuu yeelanayaa haddii aan laba leeyahay waxqabadna wuu yeelanayaa labadaba wuu yeelanayaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay ballaysin wanaagsan soo dhowow suldaan beesha reer saleemaan iyo habargidir baa waxaan leeyahay inaad suldaankiinni caleema saarteen oo suldaankii ku habboonaa hesheen hambalyaan leenahay soo dhowow baan leeyahay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa inamada kamaradda ku hawshooday wakhtiga badaniina ka duubayay xafladda see fiican u duubayey abwaaniintii iyo hobaladii iyo hoballadii iyo barbaartii ciyaaraysay ee ina maaweelinaysay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo jeclahay odayaasha iyo dhaqanku inay dhammaan salaan iga gaadhsiiyaan beesha habargidir waxaan run ahaantii imaantinkaygan maanta